markay taasi dhamaatayna booliiskii baa la adeegsaday laba meelood ay noo fayo qabtayo dalkeena oo qabyaaladii iyo kala oo dhismay ciidanka qaranka iyo booliisku booliiska waxa loo dhiibaa oo madax noqda cid dee booliis soo baratay oo garanaysa booliiska shaqadiisa waxa weeye policy waa inuu noqdo security-ga iyo sharciga ilaaliyo dadkana la saaxiibo community-ga military waxa weeye hebel soo dilay commander okay uu soo dilay maogtay waxa loo dhiibay ku yaroo reer Hargeysa oo markii horena xirsi waalay oo xidig si ya مع مدوينا وقدروي بوليس كما قرر مايو وكان انه هنجبي لا عيد حصانه اللي ما جرتو هذو حصانه ديدو شرعي ديدو اسنا ما وحنا قايه تلي هو كان كساحل كخيدان وابتيغ yahay xilay war maxaa wixii abtaan haygu iyo waxa la ka joog nin kala wadana kulmiye ka sharaxanay inta booliiska ugu tagay uu yiri abtee haddaan iscasilin 10 sano la xukumiyo iscasil waa ma terrorist bay laabaan ku dhaalay horta waa ka taliyaha ciidankeena booliisku waa kaas ilaahay ma ku dhaalay hay'adaheena waa ku wada aragtay magaaladeena waa la aragtay oo hadduu imka booliiskaasi jabay isku talaabayno labada dahmo maxaynu inoo dhisan qaranimada iyo soo ceshay ku helay bal waxaynu ku